waxaan idin cadaynayaa haddii alla idmo qof shabaab oo intii nooshaan uma dhiman doono maanta meel ku qora cabanayaa caafimaad waxa laga cabanayaa biyo waxa laga cabanayaa waxbarasho waxa laga cabanayaa baahiya laga cabanayaa biidnillaahi alkariim waxaan idin cadaynayaa haddii alla idmo qof shabaab oo intii nooshaan uma dhiman doono maanta meel ku qora ciidanka ilaahay baa wax kasta ku suuro galaan laakiin waxaan rumaysnahay ciidanka ilaahay oo ciidankeena ahayn inta shabaab joogan shabaab oo ka sheekaynaya haddii alla daliishana waa idin cadaynayaa cadaaladda ilaahay intaa waa ka weyn tahay arrinta adeerkay ka hadlay problemka xagga caafimaadka waxbarashada problemka ka jira waa garan karnaa deegaankan iyo deegaamo badan oo lamida inay ka jiraan maanta laba shay shirkeenu ku saabsanaa horta inaan isbarano wajahan waxyaabaha ka cabanaysaan inaan dhageystana qodobkayga labaad ay ahay inaan idin mahad celiyana waa rabay sida aad cadawga ula dagaalanteen ee aad u naafayseen ee aad uga qayb qaadateen ee aad dhallinyarada u soo dhoweyseen wiilashiinnii ah oo ciidanka ah midabkay doonaan ha lahaadeen si aad u soo dhoweyseen waa idinka mahad celinaya cadawga saaad isaga celiseenna mar labaadaan idinka mahad celinaya in lagu dhiiradana waa rabaa maanta waxaa noo yimid oo marti noo ah guddoomiyihii gobolka Hiiraan gobolka oo xukuumay ka mid tahay degmadan wax badan oo halgan ku soo jiray anta wuxuu joogaa koonihii Hiiraan waa guddoomiye xafiis inuu fariista loogu talagalay ma ku sinaana halganka oo maanta meeshaan xawaadlo oo maraayo ninkii soo curiyo waay wax kale la isku imaan waxa la isku yimid in la wada tashto la isxog waraysto meesha ay ka dhimantaa laga dhameystiro gacmaha la isqabsado gudoomiye mar labaad gudoomiye shacabkii degmada Tardo iyo degmada Jallaqsi iyo deegaanka Tardo si hagar la'aana oo qalbi fiyow oo caafimaad qaba sida walaal looga bartaa ayay hadday tahay dagaalkana u galeen gabdhaha kama harin qolkiiba 100 dagaalka way garab istaageen baayida lahaayda oo labaad waa inana isbitaal lahayn waa inana lahayn hadii Rabbukuuro yahay in waxbarasho lahayn waa in dugsi sare lahayn waa in dadka iyo abaarihiigeen qof walba ay jilbaa qabsatay waxa codsanayna inay baahidaas lagu taagatahay hadda Tardahaas la taagayahay oo furunta dagaal oo jiro waxa dhaxdiisa laga aruuriyaa dad hadii Rabbukuuro yahay awada dib mashidan la leeyahay oo hadii loo tago hal kuway biyaheeda cabeen ay iridda ka dhooban yihiin oo wax beer loo beegma dameer baa noqda ay ku qoryeystaan ee uu iridda ka fadhin xildhibaan Cabdulqaadir Maxamuud oo Bakar Dhagweyne oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka dawladda Hirshabelle qaybna ka ah wafdiga gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ee gaaray deegaanka Tardo iyo Korneyl Cabdullaahi Barre Cilmi oo taliyaha ciidanka dib u xireynta deegaanka ayaa dhankooda halkaas ka hadlay qawaariijta meelaha laga dagaalamay waxa kamid ah oo sida sharafta lagu la dagaalamay oo dhagaxa loo qaatay oo markii qoryaha lagu la dagaalamay dhagax la garabka laga tuuray dhinaca askarta ka dagaalamaysa ama dhinaca kale dhagax laga tuuray waxa kamid ah deegaanka Ceelay waxaan soo xasuustay marka laga yimaado deegaanka Ceelay oo dagaal xun oo ka dhacay deegaanka labaad oo dhagax iyo qoray iyo ul wax kasta lagu la dagaalamay deegaanka Tardo taas cid u malaysa been ma ahan ana ka cadaynayna dagaalka joogno waxaan rabnaa reer Tardood maadaama uu joogo gobolka
waxa oo dhiman anagoo ka codsanayna goboltooraha gobolka iyo dawladda federaalka intaba Tardood in meel lagu soo sheego dawladooysan ilaa shabaab meeshan oo ka guuro oo meel kale ilaahay looga wado ama gacanta inaan ku dhamayno in Tardood aan laga tagin dawladana ka codsanayna maca goboltooraha gobolka marka hore waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin aad u mahadsantihiin mahad oo idiga gaarto sababtu waxay tahay gacanta la idin soo taagtay adukuna waa qabateen sababtu waxay tahay cadowgaas aad gara kartaan wuxuu yahay arxan laawayaasha ah jihaadka sida aad uga soo dhalaasheen waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin taas marka aan ka gudbo meeshan deegaanka Tardood haddii aanan nimanka qawaariijta ayna joogi lahayn maanta indhaha ay leedahay ma lahaateen waxa dib u dhigay noloshii dib u dhigay in caafimaad yimaado u diiday waxa gara kartiin inay ahaayeen nimanka cadowga waxaan rabnaa aniga gaar ahaan waxaan ahay xildhibaanka ka soo jeeda deegaankan iyo deegaamada inta badan la soo xureeyay iyo hadda kuwa la joogaba dadkayga in caafimaad ay soo gaaro oo ay caafimaad helaan oo biyo nadiif ay helaan waxyaabaha gaarka nagu ah in anaga aan ka shaqeyno ay tahay marka waxaan idin leenahay gacantiina aad ku ceel baxdeen nimankaas qawaariijta in la dhameystiro nolol kasta waxay ku xiran tahay in la dhameystiro ayagana dhameystiro waana dhameystirayna haddii Ilaahay yiraahdo sida wanaagsan oo aad qalbiyadiina u muujiseen isku garab taagantiin muddo yaraan noo dhiman in isku garab taagnaatiin horta marka koobaad waa iga codsanayna waxaan rabaa dadka deegaanka Tardood caafimaadna waa helaysaan waxbarashana waa helaysaan haddii Ilaahay yiraahdo labadaba waa keenayna